walaal qisooyinkana kuu soo hadaynaya waxaa laga yaabaa inaad khaflad aad ku jirtay aad ka toostid baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa xumaan aad ku jirtay inaad faraha aad ka qaadidid ilaaha u toobad keentay qofka toosan ee dariiqa ilaahay haysta ayaan u hadaynayaa si uu digtoonaado ka musrifka ee naftiisa dembiga galay ayaan u hadaynayaa si uu ilaahay u soo toobad keeno walaalayaal dunuubtu musiibo oo dhan iyadaa sababo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على رسول الله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام waxaan wax ka taaban doonaa hadduu alla yidhaahdo caawa qisasun murkiya waa qisooyin oohina waa qisooyin naxdina waa qisooyin runtii qofka muslimka cabsi gelinaysa weeyaan walaal qisooyinkana kuu soo hadaynaya waxaa laga yaabaa inaad khaflad aad ku jirtay aad ka toostid baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa xumaan aad ku jirtay inaad faraha aad ka qaadidid ilaaha u toobad keentay qofka toosan ee dariiqa ilaahay haysta ayaan u hadaynayaa si uu digtoonaado ka musrifka ee naftiisa dembiga galay ayaan u hadaynayaa si uu ilaahay u soo toobad keeno ka ghaafilka ah ayaan u hadaynayaa si uu u buraarugo uu u tooso walaalayaal dunuubtu musiibo oo dhan iyadaa sababo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir musiibo inaguma dhacda buu ilaahay yidhi hadda inagu dhacdo fabimaa kasabat aydiikum waa waxay qacmihiinu ay kasbadeen buu ilaahay leeyahay ويعفو عن كثير إلهي إن بدن بو إني قد عفا يا ربي سبحانه وتعالى مصيبتك مرد على ويلكاغو هدو قلت ويلكاغو عاقدك ونغضو عذر هدك ونعان قلي وفبما كسبت أيديكم ووحي قعمهين أي كسبدان إلهي ولي بوحب بدن بو ربي إني قد عفا إلهي وحا إليهي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون إلهي وحولي فسادك أيا صور ظاهري برقي بحر كيبا فسادك أيا كسور ظاهري وادتك وحي كسبدان أي قعمه ذاك كسبدان بو إلهي ليه إلهي وحولي إلهي وحو الربائن البلبسيون وحياله أي كسبدين بركود إبو النسيو إلهي وحا إليه هددو ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا إلهي هدو ددك أوكو قبل يوحي أي كسبدين أي شقيستين أي حمان أي لي مادين ما ترك على ظهرها من دابة أرنادا قركيغا وفي مسعودين بو إلهي لي قف وربدن بيقو أسمي يا رب هدوكو قبل يو قف أرنادا مكو السعودين إلهي هو العاسي يا ربي سبحانه وتعالى الرضا لو عاسي الصمد لو عاسي ديارنا نحدو لو عاسي من والبا بدها نحدو ذا ربي لو عاسي سبحانه وتعالى إله الدمدي سواء ضافيا لكن واحد أغاتا ذنوبته إيضا أمر سهلات إيضا قرون سهلات إلهي سبحانه وتعالى لبدي أبو حواء يا آدم لبدي لأبو hooyadii xaawa iyo aabbahin aadam jannadii maxaa looga soo saaray waa dunuubta ka soo saartay ibliis maxaa loo nacdalay oo naxariista ilaahay looga fogeeyey waa dunuubtiisii weeyaan qoomkii nebiyullaahi nuux maxaa loo qallibay qoomkii geligiisii oo loo qaraqay waa dunuubtoodii weeyaan reecad muxuu ilaahay dabaysha ugu salliday waa dunuubtoodii ree tamuud maxaa loogu dhawaaqay oo loo halaagay waa dunuubtoodii qoomkii nebiyullaahi luud
محادك لولقوي وذنوب تودي ريشعي ضرور عذاب إلهي معوغس وصاري وذنوب تودي فرعون محال لو قرقي قارون محادك لولقوي وذنوبتي إلى النبي آدم ذنوب تاسكها لاقس إلى النبي آدم إلهي رب سبحانه وتعالى وحأوليه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مصيبة إنه مدعدو إلا هدى إنه مدعدو ووحي أتقعني لا أكبر ستنبو إلهي ليه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة بلاء يمسود دكتو إلا هدى يسود دكتي وحي لسود دكتي إنه ذنب لسمي لما كريال بلو إلا توبة لما كريالا dadkii hore min wanaagsan oo cibaadii hore kamida ayaa dambi ku dhacay dambigu sameeyay hurdada loogu yimid waxa lagu yiri la tajidanna ghabbaha aqibadeeda iyo xumaanteeda dambiga alla timid waxaad heli doontaa bacda 40 sana 40 sano kadib ayaad arki doontaa dambiga alla timid 40 sano kadib ayaad arki doontaa Muhammad ibn Sirin maalin bay dhibaato qabsatay دين لولها أي نمر ولي مكاسا وحا ويري وحان قرنا يا إني لا أعرف هذا الغم غم يموت الإهيسته يدبا تضل وان قرنا يا حقا كسوق هذا وذنب أن كل عي منذ 40 سنة أفرت السنة إلا ذكره ذنب أن قال أي هيسته إلى منت إمام أحمد وحا وكوري أبي الدرداء وحا ويري أبي الدرداء واعلموا وهذا أن البر لا يبلى دنبه مجبوبه البر ولاد لا يبلى مجبوبه وأن الإثم دنبه لا ينسى لما إلوه أدوار إلوه دنبه لا تسمى سوت كإلوه لما إلوه دنبه لا تسمى وكنت بصعن واتسك عياري سأدو واتسك قصر يساور أمه يسيب لكن دنبه لا سوى كنت بصعن بريد دنبه قبل دولة حلقة يابا إنه أديك إيا أولاد هذا أقبط قصدي إنه ريسيها سوق هذا الله الحقيقة المرة وحقيقة قراريت هوالي أيا أضي لهيت شنصنا أيو قبي دارين أيا ليلة هذا هوينا داس وحرور بقلين وحيكفي كيري سي مالك أين قندون تهويو أي الميا لندونت إلهي ببريس ربي سبحانه وتعالى إن إلهي ولد صالح أسيو أي بريسي إن بضل أي دعاء سنجرتي إله ولد إسي إله الشن صنع يا كبري يا ربي ولد إسي إله ولد إسي أدو ويجرتي وحيكون فكري جرت مالك هو ينقن دونتا إرميا أكيد دونتا أي يكون فكريس هوانا يدي وحا إس أركتي إسبدل بإسك أركت عادي ما كتشوف شتي يدو مرحم الله إس أركتي وحي أركتي يدو إسبدل الشيء أي إس أركتي نختار كي تكتوي إس بعدك ودي راعي وحو نختار كي أشاقي إلى أورنا ذهي والفرح ذي فرحد شمس سنة سونيس فرحد وسقادي كرويدي ضدك يقول يا وشك فرحد ولا سوي من فرحد دعاء لسماي ويلكي أي سويسي أي يمت ولا شيء وحي أبحس محمد أي أبحس لكن ويلك ولا وجه حي أدى وفرح ذي وين كل باتوتي شيحتان كائلمها لوجه حي كل باتوتي odagayga waxay ka codsatay in ay u qabto haweeney u shaqaysan qaadimad iyo qabo uu qabtay waxa jiraysa islaan daa oo faqiirada oo miskiinada oo guryaha u shaqaysa ayaa jiri jirtay islaantiiba u keenay si ay ugu shaqayso markay toddobaad u shaqaysay ayaa waxay ku tiri haweeneydii daarin bay ku tiri islaan daa ahay laakiin inan yar baa guriga ay joogtaan oo aan dhalay inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso anaana shaqada bari maalima la joogi ay ogolooba tiri waayahay bay tiri sidiiba inanteedii yareed ba u keentay inantiiba ay shaqada tusaysay 20 maalmood ay u shaqaynaysay islaantuna ay ag taagneed gabadheeda tayad da'deedu 17 jir ayuu yahay aad bay u qurux badantay way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso way soo qurxin jirtay soo labisan jirtay markaas iman jirtay daarin ba aragtay mar walba is soo qurxisa waxay ku tiraahdaa soo qurxin way absanaysaa odayga oo absanaysaa meesha fidna ka dhacdo maybu ku yiri maxaa dhibaato ah
iyadoo farx inta ku iman lahayd soo qurxisay dhibaato male inay faliisiiso ay doontay waxa tiri wuxuu ku yiri may 40 ka dhamayso kadibna markaa iska faliis laakiin aan ku shaqeyso tiyara guriga ka shaqeysaa way soo qurxisaa 7 maalmood markay u shaqeysay ayaa gabadhii daariin xumadii xanuun dhiigii nifaaskii ayaa xumad ka qaaday oo ku xanuunsatay odaygii ayaa si caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo uu iman jiray wareysan jiray sidee xalay ahayd waa dhigi xanuunsanayay maxaa subax uu iska soo kacay baabku ka baxay way shakiday maxaa dhacay bay tirtalo muxuu ii soo mari waayay uu baridin waayay way shakiday gabadhii shaqeeda ahayd baa u dhawaaqday gabadhii ayaa maqli weyday aad buu xanuunsanaysaa way soo kacday iyada raadinays aqalkii way dhaxmar martay way ka weyday qolkii ay seexanaysay ay ka raadisay way ka weyday guriga xaggii mandarada ahayd oo kacday waxay aragtay qolkii odaygeedu uu seexanayeen oo ay wada seexan jireen oo dharkii hurdada xiran tahay oo hurdo lugta u saartay albaabka furtay waa gabadhii oo waa maxay bay waxaad samaysay way ku qayliday ma waxaad seexanaysaa guriga odaygeegaad seexanaysay oo dharkaygii baad xiranaysaa dharkii hurdada miyaad xiran waxay ku tiri hadalkaaga u fiirso ha igu dambaabi gurigan anigaale ma ogid uu guursaday odaygu in 7 laga joogo caruusad baan ahay arrintiiba meesha khilaafka ka yimid waa la isku qabtay meesha faafada bilaabay markii iyo xagash dhulka la isku ladii meesha dagaal xoog la ka dhacay kadibna ilmihii yaraalay soo qaadatay axmed bisa maxamed waa maxamed way la soo dhaadhacday hoose la joogtaa odaygii baa yimid isagoo lalaya aawuu yiri waxay tiri kor bay joogtaa oo dhawaaqay ummu maxamed xagee joogtaa albaabkii waa furay waaba iyada oo mayda oo caloosha jiifta oo dhiiga ka soo dareeray meel socdo uu dhawaaqay khadimadii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tiri maxaa dhacay subxaanallah iyadoo fiican ayaan ka imid halkori ma ku iri meesha ma kori karaysid laakiin way kortay xagiibu dhawaaq ku dhuftay akhiiran waxay socotaba qisadii dadkii jaarka yimid dhakhtarka loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimatay albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna uu furmay sidaas ku dhimatay ninkii dhakhtarka haaba waxa uu yiri diina qof la joogin markaas mayli wiilkeeda yadma la joogin maxamed waa qadar ilaahay baa la yiri saas lagu aas 3 maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu dhawaaqay gabadha xaaskiisa dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan maxamed ay korsadaan iyaga u soo dhaweeyay inantii shaaqiyada ahayd meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yiraahdaa meesha joogta ayaa aragtay islaantu waxay ku tiri odayga ku tiri gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxa uu ku yiri innaha zawjati wa haweeneydii daarin iyadoo aan nool baan guursaday gabadhan masaa saabay tirhaa way shakiyeen markaa waxay tiri gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanay habkaad iigu sheegtay inuu dhimatay gabadhan may joogtay gabadha waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah dushay fuushay baabka jeedhay nabarkaas ku furmay gabadhii yareed bay egtay caruusadii jiriidka ahayd waxay tiri maxamed oo dhageyso إذا كانت الحقيقة اختفت عن المخلوق حقيقة هذا كقرصوناتي مخلوقا أي كقرصونتها حقيقة فلن تختفي عن الخالق إله خالقة كقرصوناني ميس ولي إلو دندقني نو أما لا إسك إلوغي لكن إله إلو بماي وأكو درس عن أرنتاس أبو محمد وما أبي الأرنتاس وحاولي كل إنسان يأخذ نصيبه قفل بالنصيب كيسو قابل وإنما كان نصيب أبو محمد وحا الضانين شرابي والشراب ويسكديد إسلامتي وإحنا أقسنته waxay tiri maahan korsanayna annaka ka xaysanayna waa yahay yiri waxa ku yiri bishii walba masruuf kan keeni maybay tiri annaka korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen
haweenaydii shaaqiyada ahayd jamaalaad la oranayay gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosh faqirnimadii way ka raysatay xaalkeegu wanaagsanaaday sanad kala soo maray si wanaagsan sanad kala soo maray si wanaagsan caruur bay u dhashay 8 wiil iyo 3 hablood ayay u dhashay waamis 12 ayay u dhashay maalin walba qurux baa u biiraysay iskanada ahayd faqiirada oo waxba haysan nimcad bay soo gashay laakiin dambigu ma yara ilaahay adoonkiisa waa u kaadiya markuu qabtana kama siibto iyadoo oo nimcad ku nool ayaa odagayga waxay ku tiri waxaan doonayaa inaan soo yara dalxiisno in yar hawada soo yara bedelayna magaalo kale nageeya soo yara dalxiisno waayahay buu yiri baabuur buu ku qaaday way iyada iyo caruurteedii oo dhan 12kiiba isagana ku waday baabuurkii baa la qalimay gabigood waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkeygii weynaa ee curadka ahaa bas intii kale way ku dhinteen iyadii lafta dhabarka ayaa jabtay wiilkeygiina iyo qacantii iyo meel ka jabay laakiin waa iska fayowya markii ay soo dhigirsatay ayaa waxay ogaatay in caruurteedii inankaas uu ka noolyahay 10kii kale inay dhinteen ay ogaatay iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyay baralize baa ku dhacay 3 sano ay dhakhtarka ku jirtay wiilkeygii 2 bilood buu ku jiro ka soo baxay noloshiiba hadda ku culusaatay waa la bilaabay dambiga bilaabay waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa dadka laga laxaad kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ay ku socotaa wiilkeygii ayay ku tiri ii kaale dhakhtarkan ka soo baxay baabuurku soo kaxaystay isagana wadada markuu soo socdo baabuurkii la rugmaday isaguna wadadu ku soo dhintay wax u yimaado weeydi waa kaligeed laakiin lacag baa leedahay la soco dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen aabaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan waxaa yimid Muhammad maad garanaysaa Muhammad waa wiilkii oo odagayga u dhalay ayaa yimid si dhaxalkii aabihii uu uga qaato waxaa la socotay Muciidi ayaa la socotay islaantay dhashay Daariin gabadhii meeshay soo taagan tahay waxay tiri markay islaantay aragtay ayay xasuusatay inay dambi gashay waxay ku tiri habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii adigu tiri إذا الحقيقة اختفت عن المخلوق حقيقة هذا كقرصونتها المخلوقة ضدك أي كقرصونتها إله خالقة كما قرصون محصنت ها بيتري وحي تري سامحني أنا التي قتلت دارين قبل داري دارين أني قد لي سامح إله واكن إيقبت عرورتي دي أو نلوان واي أني قال نبر كان لي إيقتبي نلوشا قداد بانكو نولها إسامح islaantii way ooyday waxa ay tiri ilaahay nolol xun kugu nooleysii aakhirana kugu cadaabo waxa ay tiri odagaygi waan waayay awlaadaydii waan waayay shabaabnimadeydii caafimaadkaygii waan waayay in yar isaamax islaantii iyadoo araysan oo ooyeysa ay ka baxday jamaalaad xaggii bay reerkoogii la joogtay aabaheed baa dhintay walaalkeed ayaa u hadhay lacagtii yarayda soo dhaxashayna isagaa ka qaatay khamru ku cabbay وكزينيستي إساقنا أخيراً سحن بودنس جارك أيال لعبو سوء رنشري صدقة دالسينشري جمالات كلي جيد أي كنا ولد مخسير وعديدية إلا كل مت وحالو قرت المشديدي ميتكي أي ماشا كقرمي مركاسي جاركي أوريا ميتكي عذابك آخراً وكدرية ذنبي قواصدة إلهي رب سبحانه وتعالى وكو كادل لكن مالك أوكو قبط ربي كل حرسني مالي واتكلم الله وحوغا واتكتشي لكن مالك إله ربي سبحانه وتعالى أوكو قبط كفك كريميس وحقيقة وقصة نبا معها خيال معها